dacdadaasi waxay ku dhacday nin la yaabo ilaahay u naxariistay jaamac xuseen tooro oo qoys hoosanahay qabtaa leeyahay qabtuu jaamac ku maqan yahay gudoomiyaha gobolka Mowdooya mar labaad qoyskii jaamac oo aniga ah inuu qabta lagu dilo oo la yiraahdo iyadoo la qabanaya la dili ma sidaas la fahmay anigu yeeli maayo sidii jaamac kaba loogu asin kaba lagu aso wallahi ana yeelay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal waxa hadda khadka si toos ah ugu jira Liibaan Cartan oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee gobolka Sanaag Liibaan soo dhawow maalmihii u dambeeyay waxa baraha bulshada haystay sawiradaada iyo waliba sidoo kale muuqaal aad ku sugnayd hotelka Rarsi ee magaalada Cerigabo bal soo dhawow dhacdooyinkaasi nooga warbixi waa maasantahay wariye British aad iyo aad ugu maasantahay waraysiga aad la yeelanayso runtii dad baan ka maray xataa xaafadda inaan la soo hadlo la soo xiriiro cadaadis badan baa ragga qaar ku saaray waana u garaabaya culeysida jira waan dareemayaa marka waxa weeye waa runo bariyahan u dambeysay waxa iska jirtay aniga gudoomiyaha gobolka nin lagu magacaabo Ismaana Isteber ama Axmed Isteber ayaa aniga shaqadii horta si gardarra oo kibira shaqo joojin ugu sameeyay way shaqo joojin dabadeedna waxay ku dhacday maalintii shaqo joojiyay maalintii ku xigtayna waxa uu igu sameeyay wax la oranaayo waaran ciidan buu isoo jaray ciidan buu isoo diray way dabadeedna waarankaas waa qabasho way wax dambi oo aan galayna ma jirto dambi aan qaranka ka galay ma jiro cid wax igu leeyahay ma jirto weligay oo anigu ninka dadka aan saldhig tigin baan ahay ee xataa magaalada inta ku noolaan weligood wax qaranka dhaawac ku ah ama dhibaato ku ah ama dhaawac ku aan deegaysan qaranku waa qarankaygii oo dadka usoo dhintay kontareeyada qof ay kaga maqan tahay baan ahayo eriyaan baan joogaayo intaa waxa ay jirta kal sheekho konton nin oo aniga adeeraday iyo ilmaadeeraday runtii ay ku jiraan ayaa dhintay qarannimada u dhinteen Soomaaliyaanimada u dhinteen aniga maanta nin waxa weeye qaranka dhaawac ku ah oo qaranka wax yeelaya mabayhida waa hagaag Liibaan marka maxaa lagu sameeyay hada rabaa wariyo inaan mid ka cudur daarto oo suuqa iskaga jirto oo dadka maangaabka lagu khaldo gudoomiyaha Axmed Isteber dadka qaar waxay yiraahdaan waxa lagu haystaa magaalada reernima lagu eriyanayaa waxa lagu eriyanayaa Axmed Isteber waa gudoomiyaha gobolka waxa saada oo haya ma jirto eediisu baan sheegaya isaga iyo reer Tulkina waa ay kala duwan yihiin reerka uu ka dhashay Faarax Biide gaar ahaan Axmed Faarax reer muumin reer dad wada deegaan oo walaalaha oo isdalay oo talabaad maay reerkaas way gacablay weligii reernimo isugu maanimano reernimo kuma maagayo laakiin sida uu wax u dhaqmay ee u maamulay iyo dhacay badan oo dhacay iyo sida uu aniga shakhsiyadeeda u dhaqmay ayaan hadda saxaafadda la soo xiriiray daliishuna keligii bay ku gooban tahay keligii waa hagaag warqad baa jirtay in la soo saaray isla markaana uu soo saaray barasaabku haddana khaldareen warqadaasi waxa lagaga joojiyay mushaharkii ama si rasmi ah shaqadii lagaga joojiyay maxay tahay sababta oran kartaa sababtu waxa weeye horta aniga gudoomiyaha gobolka horta waxaan marka hore rabaa bal inaan istiimiyo gudoomiyaha gobolka horta aniga shaqadayga ma saari karo xafiiskiisa horta anigu kama shaqeynayn askari staff oo ilaaladiisa aan anigu ma lahayn shaqadaasuna sideedaba anigu hay'adda shaqaalaha qunta agaasimaha waaxda shaqaalaha ayaa shaxmarinta ayaa anigu hoostaga nin Axmed horta hoostagay horta mabayhida mar labaadka calada caraka keentay oo Axmed waxa uu dagaalka uu baa la fogaaday shaqo joojinta waxa uu igu sameeyay wax kale ma aha waxa dhacday xaflad baa ka dhacday habeen dhaweyd hotelka Rarsi hotelka waxa la nin ganacsada oo aan hayb ahaan hoos sunahay oo waliba waxa weeye nin qiimo badan ah hotelka uu dadkii tagay baan ahaa waxa lagu soo casbay dhalinyarada beesha habar jalo qof ifayda baan ahaa ma garanaysaa way dabadeedna hotelkii baan tagay dhalinyaradu markay leedahay beesha magaca kamid baan oo inaan u ahay cid iga celin kartaana ma jirto meeshii baan tagay meeshii dhalinyaradii buuq baa ka dhacay way dhalinyaradii waxa la isku afgaran waayay mawduuca laga hadlayaa muxuu yahay way dabadeedna dadkii waxa meesha soo agaasimay horta marka hore oo soo casuumay dadku casuumaadda iyo cashada bixiyay ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Siciid ayaa baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland
dabadeedna waxa soo maamulay siduwayaasha dhalinyarada ee beesheeda kasoo jeeda ayaa loo soo igmaday waxaana la rabay in lagu taageero oo lagu buunbuuniyo xisbiga kulmiye soomaalidu waxay tiraahdaa cunsur carabka lagama dhowro waxa weeye qooleyna dee qoorqabasho biyo kuma cabto dhalinyarada abar jalo waxay dadkii aadka u taageeri jiray xisbiga laakiin xilligan cidina kuma khasbi karto dadkii ka hor yimid dhalinyaradii way ka wada hor yimaadeen dhammaan muddaa way qaadan waayeen dabadeed kilib baa layga duubay anigu kilibka maan ogeyn manaana arkayn hadda oo kale soo anigu kulama soo xidhiidhin saxaafadda lamaan soo xidhiidhin dee anigu cidna maan arkayn wax duubaya maan arkayn dabadeedna dee aniga oo le kulmiye dadku dee waa ka jeedaay dee yaan la raafin ayuunbaa kilibkaa la qabtay guddoomiyuhu de waxa weeye xisbi jacaylkiisa iyo kulmiyihiisa iyo wixiisa mooye dee cadhow isheen waayey oo markiiba shaqo ka joojin aanu xaq iigu lahayn oo gardarra ah ayuu igu soo dalbaday oo soo saaray isuduwahayga oo aanu wada hadallo cali sandheere la yidhaahdo aan ixtiraam badan u hayaa culays badan baa saaran wada hadalay hal maalin eed iga timi wasaaradda aan u shaqeeya wasaaradda deegaanka hal maalin eed igama iman hal digniin ma qabo marka waad iska garan kartaa adiguba dee inuu dagaalkaasi dagaal iska yahay waxa weeye xafladaasa dabadeedna guddoomiyaha gobolka waxaan filayaa canaan badan baa iskaga soo dhacday oo waa kaa dee canaantii iyo cartankii annaga nagula dhacay marka liibanow warasaabku maadaama adigu ka tirsan tahay dawladda ka tirsan tahay inaad shir ka qayb gasho dastuurka ama sharciga shaqaalaha dawladdu ma dhigaya anigu dee shir siyaasadeedba kamaan qayb gelin wariya British show shir beeshayda baan ka qayb galo dhalinyarada shiraysaa lagu yiri waana dhalinyarada beesha habar jeclo wax kulmiyahan waa jambi buu noqday shirka dadka waxa lagu soo casuumay marka hore habar jeclo yaa mabaanuba tagneen ba haddii ay tahay shir siyaasi mabaanu tagneen waan gartay marka waxa weeye anigu dee beeshu maan kamid ahay beesha hadday tashanayso oo shirayso dhalinyarada dee kamid baan ahay fakarkeyga iyo waxa weeye aragtideeda inaan dhalinyarada beesha ku biiriyo dee xaq baan u leeyahay wax iga hor istaagaya ma jiraan madaxweynayaasha qaranka ayaa shirbeeleed ka qayb gala wax iga diidaydi maba jirinba oo waxaad ku garanaysaa wariye British waxaad ku garanaysaa dee dadka maamulayay siduwayaal bay ahaayeen xaggay ka keeneen awoodda ay beelnimo iyo qarannimo isku dhexdhexaadinayaan xaggay ka keeneen qaran bay u shaqeynayaan siduwayaasha waxaa ka shaqeynayay qaranka iyo beeshuna way kala duwan yihiin qaranka iyo xisbiguna waa kala duwan yihiin waan gartay taa waxay dheer kaliya ninka la yiraahdo guddoomiyaha gobolku markii uu waaranka ii soo jaray wuxuu gacanta ii geliyay oo kiiskayga gacanta u geliyay inama saraaxiila oo dhalinyaro oo aan isku beelnahay dabadeedna qabta buu yidhi aniguna laba midna yeeli maayo oo guddoomiye laba jeer isu kay soo qaawiye yeeli maayo waxaan ogolahay guddoomiye marka hore gardarradiisa hore waa ka dhiidhiyaya maadkana dee inuu xorriyadeeda si gardarra ay ka qaado marnaba ogolaan maayo marnaba halkaa eryahan waxa ay geysayna waxa weeye nin waxa weeye lagu soo duulay oo xorriyadiisa lagu soo duulay oo si kibir oo badheedha jeel in cagaha loogu dhigo loogu talagalay ayaan hanjabaadaha ayaa ii dheer wax badan baanan qarinayaa ma rabo la fiicad inaan isku wada daro waxaba aan dee waxa weeye aan sheege aan weliba qarsanaya weriyo sida nagu maqaalaa waxaa jirta in aad iska caabin ku samaysay ciidanka oo weliba hub la soo baxday arrinkaasi ma jira wariye British show waxaas waa dacaydaha waxa weeye magaalada ku jira laakiin anigu marnaba haddaan ba ku sheegayaa ummadda haddaan u sheegayaa gobolka haddaan u sheegayaa anigu marnaba diyaarumayhi waxaan xaq laygu lahayn oo baadila oo kibira oo awood sheegasho ah in laygu sameeyo diyaarumayhi waxa weeye anigoo dulmale ah oo shaqadaydii si baadila layga joojiyey dee haddana xorriyadaydii aan waxba geysan ma haysaa cid wax ii sheeganayso ama adduunigu ama aan cid ka dilayniyay jirtaa waxbaba maan samaynay maxaa anigu anaa dhibana oo taagan maxaa shaqadaadii lagaaga qaaday oo arkay in awoodba guddoomiyenimo laygu caabinayo ma haddana waxaan yeelaa kibir ha lagu xidho taana waa beenaya mana jirto ciidan aan waxa weeye aan hub la soo baxay walaalay xaalad abuuraya ciidanku waxa weeye waxaad ogtahay dhacdo ka dhacday ceeryaha British show dhacdadaasi waxay ku dhacday nin la yaabo ilaahay u naxariistay Jaamac Xuseen Toor oo aan qoys hoosanahay Jaamac Xuseen Toor amarka lagu soo qabanayo guddoomiyaha gobolka ayaa bixiyay
qabta ayuu yidhi iyadoo aan meesha shaqaaqa iyo dhibaato ku jirin waxaan xusayaa jaamac xuseen taruuraan qof shacab ahayne uu yahay odagii magaalada si yar oo kale ayaa loo qaban karayay odayaashiisa ayaa loo diri karayay ciidan baa lagu dalbaday qabtaa layidhi qabtuu jaamac ku maqan yahay guddoomiyaha gobolka mawduuca mar labaad qoyskii jaamac oo aniga ah inuu qabta laygu dilo oo la yidhaahdo iyadoo la qabanayaa la dili ma sidaasaa la fara anigu yeeli maayo sidii jaamac kabaa loogu aasin kabaa laygu aaso wallahi inana yeelay وقتي waxaan anigu nin dulmanaha baan ahay magaaladeydii iyo gurigeygii waan jeclaa inaan joogo waxa iga soo baxsaday waa guddoomiyaha gobolka iyo rag badan oo ku lamaan oo waxa weeye godan yahay haddaan barkey kugu jirin imaad goyseen oo maanta ereyaan maan joogin haddaan rag annaga ahay aanu dhabarka ku hayno anaa dhabta saare dhexdi waa hagaagi kaasi wuxuu ahaa liibaan cartan oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaag liibaan aad baan kugu mahad celinayna oo mahadsantihiin salaam allah